رئيس الوزراء دولة الفدرالية الصومالية وضع حسن علي خير مدحوينياش الدولة الجمهورية من مدة مجاعة معي دمانتود قدوميها جوال كبنادر مركز قدوميها جوال كبنادر وزيرها هدي له هربري وقاعد عيانتها لفتيش الدولة الجمهورية ونجمع قلها وزيرها سنترها حلبانada fanaaniinta hooyooyinka dhammaantiin gudoomiyaasha gobolka banaadir horteeda fadhiyaan dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal marwooyin waana ka hadlay arrintii aan halka u nimid iyo intii kale oo wax siyaada ku dari maayo laakiin waxaan idin sheegayaa inaan bilownay in khayraadka badan oo naga qarsoon oo dalkeena yaal inaan kii ugu horeeyo kalluunka ahaan bilownay macaadintii iyo badroolkii iyo kulli waa soo socdaan iyagana maalmaha soo socdaa tilaabo laga qaadi doonaa insha Allah mudanayaal marwooyin gobolka banaadir waa caasimadda Soomaaliya waxaan u malaynayaa taariikhdeeda inta aniga iyo inta igu filihii xamar kale arki jireen meeshaana waxaan arki jirnay la yiraahdo magaceeda Vice Guerra oo Vice Guerra loo oran jiray ayadaaba ka nool kaligeed intii aan arki jirnay wax kale oo ka nool ma jira waa baabaad haddana waxaan rajaynaynaa oo ku guubaabinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir in uu magaalada bacweynaha iyo carshaanta iyo tireedishaha iyo doodishaha kala dagaalamo magaalada isku soo aruuriyo in la sameeyo city plan magaalada gabigeeda waxa deeqa buurkaloole iyo anzalooti iyo hodan iyo boondheere marka la aruuriyo doodishayaasha iyo tireedishayaasha oo laga dhibo dabaqyo qurux badan dadkoo dhan waa deeqaysa bacweynaha iyo kulli waa laga soo guuri doonaa marka mudane gudoomiye waxaan kugu guwaabinayaa inaad raadisid city plan inaad samaysid arrimahaasna dowladda federaalka iyo annaga iyo cid kastaba inta la kaashitay waxaa loo baahan shaqada in tilaabada hore loo qaado si magaalada loo aruuriyo magaaladu nadiif noqoto magaalo fiican oo qurux badan noqoto oo magaalooyinka adduunka la tartanto adiga intaas kugu guwaabinayaa inta kale annaga haddaan nahay dowlad goboleedyada waa diyaar garownay dalka inaan isku furno waxaan u diyaar garownay inaan maaragtay tilaabooyin adag qaadno annaga iyo dowladda federaalka oo hogaaminayo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha aad iyo aad baan uga hadalnay aad iyo aad baan maaragtay uga shaqaynay sidii dalkan la isugu furi lahaa shidadkiisa iyo maaragtay iyo xoreyntiisa intaba intaas ayaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa adinkuna waa nagala qayb gali doontaan qof kasta oo Soomaaliya waajib waxa ku ah inuu dalka dhinaciisa ka ilaaliyo inuu dawladda dhinaciisa ka ilaaliyo qof kasta dadku waxay moodaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo kaligood inay yihiin dawladda qof waliba cad buu leeyahay cadkiisa inuu ilaaliyo raba haddii cadku xumaado shirkoo dhan waa xumaanaya haddii dadku ay xumaadaan oo ay dawladda ilaalin waayaan dawladdu ma shaqayn karto mana shaqaynayso in canshuurta la bixiyo la isku soo dhawaado la ogaado canshuurtu inay tahay wax xaq ku ah qof walba in amnigiisa lagu ilaalinayo caafimaadkiisa lagu ilaalinayo tacliintiisa lagu ilaalinayo qof waliba inuu sidaa u fahmaa loo baahan yahay annagu haddaan nahay dowlad goboleedyada waa tashanay taladeeduna waxa weeye inaan dowladda federaalkana la shaqayno annaguna sidii qof waliba ama gobol waliba uu dhinaciisa u xoreyn lahaa oo cadowga uga bixin lahaa oo amnigiisa u sugi lahaa oo nidaamkiisa u hagaajin lahaa inuu ka shaqeeyaanu ku ballan sidaas ayaanu fulin doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa goor dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu